daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films channel oo idiin soo gudbisa taariikhaha agtarada dalkaasi Hindiya ka soo jeeda kana mid ah shirkadda Bollywood-ka Tamil Telugu ama Malayalamka. barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa 7 jilaa iyo 7 jilaa kale ay isku da'da yihiin oo aysan u dhaxaynin farqi saas u weyn marka la eego dhalashooyinkoodii, balse muuqaalada markii aad daawatid ay ku soo baxayso in aysan labadan qofood ama labadan jilaa aysan xagga da'da isku mid ka ahayn. daawadayaal, barnaamijka waxaa ka mid ah agtarada aynu ku soo qaadan doono agtarka caanka ee Hrithik Roshan iyo Ram Kapoor, agtarka Nana Patekar iyo Ampuru, Shilpa Shetty iyo Samriti Irani, Sunudol iyo Alok Nath, Hema Malini oo ah Atrisha Caana iyo Farida Jalal, Shabani Azmi iyo Bindu, Udaya Chopra iyo Rohit Shetty. labada actor ee isku da'da ah waxaanu ku bilaabaynaa actorka Hrithik Roshan iyo Ram Kapoor. Hrithik Roshan waxa uu dhashay 1 Janaayo 1984, waa actor filimada sameeya. Ram Kapoorna waxa uu dhashay 1 September 1973. haddaba farqiga u dhaxeeya wuxuu yahay daawadayaal waa 2 bilood iyo maalmo, 3 bilood xitaa uma dhaxayso. markaad muuqaaladooda eegtid Ram Kapoor iyo Hrithik Roshan waxaa ku soo baxaya farqi aad u weyn. labada kale ee aan soo qaadan doono ee ku xiga waxa ay noqon doonaan actorka caanka ee Nana Patekar. Nana Patekar waxa ay isku da' yihiin jilaaga kale ee caanka ee Ampuru, waa Amrish Puri Salmase walaalkiis ka yaraa xagga da'da. Nana Patekar haddaynu soo qaadano waqtiga uu dhashay, waxa uu Nana Patekar dhashay 1 Janaayo 1951. Ampuruna waxa uu dhashay 18 Oktoobar 1950. farqiga labadooda u dhaxaysa labada jilaa waxa uu noqonayaa waa 2 bilood iyo maalmo sidii Hrithik Roshan iyo Ram Kapoor. balse markii aad fiirisid Nana Patekar waxa aad moodaa in uu in badan waliba ka yar yahay jilaaga kale ee Ampuru iyo Nana Patekar marka ay filim wada dhigayaan waxaa suurtagal ah inuu mararka qaar Ampuru uu Nana Patekar u matali karo xagga aabanimada. jilaaga kale saddexaad, labada jilaa ee booska saddexaad ku jira aanu soo qaadanayno waxaa ka mid ah waa atirishada caanka ee Shilpa Shetty iyo Samrita Irani. Samrita Irani waxa ay ka mid ahayd jilaayaashii, balse markii dambe waxa ay u wacatay dhanka siyaasadda oo ay markii dambe noqotay xildhibaan, kadibna waxa ay noqotay wasiirka horumarinta iyo xuquuqul insaanka. haatanna waa wasiirka warshadaha ee dalkaasi Hindiya. aan xagga da'dooda soo qaadanay, Shilpa Shetty waxa ay dhalatay 8 Juun 1975. Samrita Irani wasiiradda reer Hindiya horena u ahayd jilaa filimada sameeya, waxay dhalatay 23 Maarso 1976. Shilpa Shetty ayaa waxa ay xagga da'da ka weyn tahay Samrita Irani 9 bilood, balse markaad muuqaalkooda fiirisid waxa ay kula noqonaysaa in Samrita Irani wasiiradda reer Hindiya ay hooyo u tahay Shilpa Shetty. lambarka afraad waxaa soo galay Sunudol iyo Alok Nath. Sunudol waa actor jilaa ka mid ah shirkadda Bollywood-ka, waana curadkii Dalaa Madar. waxa uu dhashay 19 Oktoobar 1957. Alok Nath waa jilaa ka mid ah shirkadda Bollywood-ka, filimo badanna sameeyay. waxa uu badanaa filimada ku dhigaa aabanimada amaba abti ama adeer ama gabadha atirishada filimka ka aabaheed. waxa uu dhashay 10 Juulaay 1956. labadan actor waxa ay kala weyn yihiin wax aan sanad gaarin, balse waxaa suurtagal ah in Alok Nath uu filimaan badan aabanimo u jilay Sunudol oo ay isku da' yihiin marka la eego.
booska shanaad waxaa gelaysa labada atariisha ee caanka ee Hema Malina iyo Farida Jalal. Hema Malina Soomaalidu aad bay u wada taqaanaa, xitaa qaybtooda aanan filimada daawan ayaa yaqaana oo waxay yiraahdaan qurux badan ama Hema Malina. Hema Malina waa xaaska u dhaxda Dalamadara, waana hooyada Isha Tol oo kamid ah atariishooyinka Bollywoodka. waxay dhalatay 16 Oktoobar 1948. waxa ayna isku da'yihiin atariishada kale ee caanka ahayd ee Farida Jalal. waxa ay dhalatay May 18 1949. marka la fiiriyo xagga da'da, waxa da'da weyn Hema Malina, laakiin markay muuqaal ahaan noqoto waxa 90% kula yaraanaya oo aad moodaysaa in ay ka yar tahay da'an qiyaas ahaantii lagu qiyaasay 10 ilaa 12 sano. Hema Malina Farida Jalal markaad muuqaalkeeda eegtaan waxa idin soo baxaya inay tahay hooyada. lambarka 6 waxa ku jira Shabani Azmi iyo Bindu. labaduba waxa ay kamid ahaayeen atariishooyinkii Bollywoodka sanadihii 70-aadkii wacdaraha weyn ka dhigay. Shabani Azmi haddaynu soo qaadano, muddo kadib waa ay ka baxday fanka. waxa ay gashay siyaasadda. dhowr jeer ayay waxay noqotay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalkaasi Hindiya. Shabani Azmi waxa ay dhalatay 18 bishii Sebtembar 1950. atariishada kale caanka ee Binduna waxay dhalatay 17 bishii Abriil 1951. markaad fiirisid muddo hal sano ah waxaa weyn amaba 12 bilood Shabani Azmi, balse muuqaal ahaan Bindu waxa aad u malaysaa in ay da' badan ay ka weyn tahay xagga muuqaalka Shabani Azmi. barnaamijka waxa ugu dambeeya lambarka 7 ku jira waa Udaya Chopra iyo Rohit Shetty. Udaya Chopra waxa uu dhashay 5 Janaayo 1973. waxa dhalay Yash Chopra oo ah film sameeyay ama aasaasiyaashii Yash Chopra Films. Udaya Chopra filimada uu asaga actorka ka yahay maahane filimada lacagaha badan oo ka soo horeeyeen ee producerka ka ahaa. waxa koo ka ah filimkii Doom oo uu wax ka jilay Ekta Tiger oo producer uu ka ahaa, Hamtum oo Saif Alaqan uu jilaaga ka ahaa. waxa filimadaas ka soo xarooday lacag badan, waxaana soo saartay shirkadda asaga goonida uu leeyahay ee Yash Raj Films ka go'day. ninka kale ee isku da'da yihiin waa Rohit Shetty. waxa uu dhashay 14 bishii Maarso 1973. markaad xagga da'da fiirisid, 2 bilood waxa weyn Udaya Chopra. kan meeshuu ka dhashay bishii Janaayo 73, kan waxa uu ka dhashay bishii Maarso. 2 bilood weyn. Rohit Shetty laftiisu fanka ayuu ku jiraa, waa directorada waaweyn. waa directorka sameeyay filimada Golmaal, Golmaal 2, Golmaal 3, Golmaal Returns Part 4, Singham, Pulp Fiction, Singham Returns iyo filimka lacagta badan ee ka soo xarootay ee Chennai Express ee uu Shah Rukh Khan actorka ka ahaa. Dilwale ha ka reeban uu Shah Rukh Khan actorka waa directorka filimada noocaas sameeyay. Bollywoodkana sumcad weyn ku leh, balse markaad fiirisid xagga da'da muuqaalka, asagay producerkan iyo actorka Udaya Chopra isu fiirisid, xaqiiqatan waxa ku soo baxay farq weyn oo waxaad moodaa Rohit Shetty in uu ka weyn yahay in badan, balse 2 bilood waxa weyn Udaya Chopra oo ah wiilka Yash Chopra. taawadayaal barnaamijka waxa aad ka daawanaysaan Saxafi Films Channel oo idin soo gudbisa taariikhda iyo dhacdooyinka Bollywoodka jilayaasha ka tirsan. hamogaanina inaad subscribe tirahdaan Saxafi Films Channel. fikirkeennina aad inoogu reebtaan qaybta commenteska ee isla Saxafi Films Channel. inagoo isku duuban oo ah baahda Saxafi Films Channel waxaan idinkaga tegaynaa
waa kooban yahay calafkun waa mid qora waxaan cabiraa rajada cadceedu markay dhacdo ciduhu ay wada hurdaan alla hurdaan waxaan fadhiyaa cidlada waxaan cabiraa rajada cadceedu markay dhacdo ciduhu ay wada hurdaan alla hurdaan waxaan fadhiyaa cidlada calooshu waxbay itagtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta calooshu waxbay itagtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan gudur moodaya cidlaan wehel moodaya aanan biyo moodaya cishaan duhur moodaya caddaan gudur moodaya cabashadu keed miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa caqligu waa isdiidan yahay cabashadu keed miyaa ceeryaamadu roob miyaa colaadu heshiis miyaa alla miyaa isdiidan yahay calooshu waxbay itagtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta calooshu waxbay itagtaa naftuna ceelbay dhexdii canaanta ka soo dirta adduunyadu waa ceshiyo caawiya maalmaan badnayn cimrigu waa kooban yahay calafkun waa mid qora adduunyadu waa ceshiyo